الله وبركاته ولا لها قيمة بدن حالي إيران وحا أي قراعدي جوردن بحرين كويت مركلي لكن دقينتي حالي ويكدوانيد دقيمة دي لحدي هبين إهوري هبين كي تضواد أيو مرايكن كإسلا قراعي إيران لكن قضب كانوا حدكم بغلي دونتا قوباها سيدا قاركا حالي الإسكولات بيكسدي دقينتي إيوارada labada dhinac u dhaxaysaada waxay u muuqataa inay xargaha goosatay warbixinii macluumaad arinta ku saabsan ayaad maqli doontaa qodobada sidoo kale barnaamijkan idinku heenayana waxa kamid ah Kuwait ayaa ku dhawaaqday in shirkadda diyaaradaha ee Kuwait Airways la hakiyay duulimaadyadeyda waxa sidoo kale si ku meel gaar ah loo joojiyay shaqadii airportka weyn ee dalka Kuwait xaaladda ayaa ku sii xumaanaysa Kuwait haddaba maxaa Kuwait loo beegsanayaa oo si gaar ah dalalka khaliijka inta la beegsada in ka badan ay Kuwait iyo Bahrain hadda xoog saaraysa imaaraadka markaa waxa badala leeyahay Kuwait sabab yaab leh ayaan idin hayaa oo aad barnaamijka ku maqli doontaa qodobada sidoo kale aanu barnaamijkeedu ku heenayana waxa kamid ah xaaladda dalalka bariga dhexe ayaa lagu soo waramayaa in ay marayso heer cabsi darteed muwaadiniintii bariga dhexe khaliijka lacagta lahaa ay iskaga baxaan khaliijka waxaan la aaminsanayaa dagaalka inuu ka sii darmaan inuu ka soo roonaanin marka la eego wadada hadda ay hayso qodobka ugu dambeeyana sheeko cajiib ayaan idinku hayaa adduunku waxa saaka la hadalaya xafladii New York xalay ka dhacday ee lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha FIFA Infantino Trump oo ka waran ka sheekeynaya kubadda cagta wuxuu ka sheekeynaya Messi oo Baroni dheelay wuxuu ka hadlayaa Argentina England oo ciyaartii dhex martay ciyaarta finalka Argentina Spain oo ka hadlay laakiin waxa yaab leh Trump footballka si siyaasadii amal ugu ciyaaray iyagana adduunku waa la yaabay ninka waxa leeyahay siyaasadii buu ku ciyaaray haddana kubadina ma imaaday wuxuu rabo iska sheegay been irunu isku qasay eber sheeko cajiib ah idinkaga diyaariyay qodobada iyo qarahan saddexdan labadan dal ee khaliijka ee kala Kuwait iyo Bahrain iyo sidoo kale Jordan saddexdan dal ee bariga dhexe ku yaala laba kamid ah ay dalalka khaliijka ku boobayeen xalay waxba ku dhacay waxa ugu darnaa baa leeyahay dalka Kuwait ee raboorradeedii ee xarumaheedii shidaalka korontada meel xalay la dhaafay malahan baa leeyahay dabkeeda la shiday gantaalada droneska dalka Iran ayaa si daran ugu dhacay Jordan waa u shaqeyn weyse qorshaheedii ahaa in saldhig uu Mareykan ku leeyahay Jordan dawladda Jordan waxay la imaaday wax dadko dhan arkay adduunka waxay ku leedahay saldhig ma ku leeyahay yaa ka akhrisanay adduunka oo dhan Mareykanka akhrisan Mareykanka wuxuu leeyahay anagoo nool may Jordan inkiraysaa si kastaba ahaatee Bahrain xalay waa la gubay oo qaybo badan oo saldhigyada kamid ah oo Mareykanka uu ku lahaa iyo xarumihii korontada Bahrain xalay burbur weyn baa gaaray baa leeyahay Iran maxaa ku dhacay marka Iran Mareykanka mar kale xalay waxa uu beegsaday dhumihii biyaha isu gudbinayay qaar kamid ah magaalooyinka ugu muhiimsan dalka Iran ana heer waxa la marayaa Iran laga duqeeyo dhumihii shidaalka ama warshadihii shidaalka siinayay tubooyinka isu gudbinay magaalooyinka waaweyn ee dalkaas macnaha dadka waxa la rabaa korontada in laga damiyo biyaha laga damiyo sida Iran dawladda Iran cadaadis loo saaro Iiraaniyiintu waxay leedahay annagana bariga dhexe korontada iyo biyaha ka daminayna macnaha wax la isu reebanayo malahan bal marka hore aynu ku hormarno warbixintan Al Jazeera ee ka diyaarsay waradii ugu dambeeyay xalay dhex maray Iran iyo Mareykanka. Central Command says it's begun a 7th night of airstrikes on Iran. It says the attacks aim to continue degrading Iranian military capabilities. Now, in the last hour, Iranian media have reported the sound of multiple explosions in the southern cities of Sirik and Bushehr, as well as Qashm Island. Those latest strikes come as the military advisor to Iran's supreme leader has warned of further escalation. Mohsen Rezai has said the policy of both negotiation and war is over. If the United States continues the war for the next 2 to 3 days, we will enter the phase of full-scale assault and complete destruction of the enemy. Once this strategy is activated, we will no longer limit ourselves to retaliatory actions, and no political border will provide security against Iran's offensive forces. xaaladdu meel xun ayay maraysaa Iran waxa laga duqeeyay biyihii korontadii kaabayaasha dhaqaalaha bundooyinka wixii dhan baa la burburinaya burbur xun baa ku socda laakiin iyadana Kuwait Bahrain Jordan xalay waxbay ku dhigtay Jordanianka xalay heer waxay gaareen Falastiintii ay ka soo qaxeen inay dib ugu qaxaan
Jordan qaxooti loogu soo Falastiin oo duqeyn ay ku socod Israa'iil dhibaataynayso ay naf bideen xuduudii Falastiin iyo deegaanada Israa'iil ay haysata xalay orod bay ku galeen macnaha dadku way aamini laayeen qiiqa iyo holac ka socda waxa inta ka daran Iran waxay soo saartay digniinta ugu dambeysay generaalada Iran General Mohsen waxa uu leeyahay haddii sidaan ay ku socoto sida Al Jazeera hadda ay warinaysay waxa uu leeyahay annagana wax aan reebanayna ma lahan meel aan dhaafayna ma lahan burbur buuxa ayuu gobolka gali doonaa Iranna waxay dhaqan gelin doontaa siyaasadeeda ugu dambayso oo ah in burbur la wada aado oo la wada burburo waxa baaba'ay bay leedahay wada hadal iyo siyaasad in wax lagu xalliyo waayahay saaxiibada qiimiga loo qodobka xiga barnaamijka ayaynu toos u galaynaa dowladda Kuwait duqeyntii xalay ku dhacday iyo maalmihii la soo dhaafay weeraradii Iran ay ku waday ayaa waxa ay ku qasabtay in diyaaradeeda Kuwait Airways la joojiyay duulimaadyadeeda ilaa iyo amar dambe kadib markii duqeynta Iran ay soo gaareen airportka Kuwait International Airport kaas oo kamid ahaa airportada ugu mashquulka badan dalalka bariga dhexe weerarada Iran ayaa sababay in dalalkii qaliijka dhaqaalahooda mar kale uu ku bilowdo burbur isla markaana uu gala mugdi weyn Iran waxa ay sheegtay in kaligeed aysan burburi doonin kaabayaasha dhaqaalahana kaligeed aan laga burburin doonin waxa ay Iran sheegtay inay eedi doonaan dalalka bariga dhexe soo dhaweysashada ay soo dhaweysteen Mareykanka haddaba in Kuwait Airways la hakiyo waxay taa qasaare mar kale ku tahay dalka Kuwait oo dhaqaalihiisu uu mugdi galay iyadoo sidoo kale airportkii Kuwait si ku meel gaar loo hakiyay macnaheedu ay tahay 100,000 in ay shaqo la'aan noqonayaan in ka badan 1,700,000 oo qof ayaa lagu waramayaa inay ka shaqeynayaan airportka taas oo macnaheedu ay tahay in muwaadiniin badan oo reer Kuwait ah ay shaqo la'aan noqonayaan iyadoo sidoo kale lagu waramayo in dalka Kuwait uu weynayo qayb badan oo dhaqaalihiisu uu ku tiirsanaa oo ay ka mid tahay dadka soo booqda Kuwait ama ganacsi ay u yimaadaan ama dalxiis ay u yimaadaan ama waxbarasho ay u yimaadaan dalalka bariga dhexe dalka ugu daran sida daran Iran u garaaci jirto waxa uu ahaa dalka Imaaraadka Carabta laakiin hadda waxa lagu waramayaa in Kuwait ay bedeshay sababta Kuwait loo beegsanay maxay tahay Iran waxay leedahay waxaan helnay xog tilmaamayso meesha weerarada ugu badan iyo diyaaradaha ugu badan Mareykanku hadda ka soo kacayaan marka Iran duqeynayaan inay tahay Kuwait macnaha drones badan oo Mareykan leeyahay oo kuwii Iran laga koobiyay ah ayaa Kuwait la keensaday sida warbixintu ay leedahay taas ayaa waxay sababtay in Mareykanka uu beegsado Kuwait markii hore waxa uu kamid ahaa dalalka duqeynta ugu yar ay ku dhacday laakiin Iran waxa moodaa hadda Imaaraadka inuu shaxda fahmay oo xitaa uu ka gaabsaday sida wax u socdaan inta wada hadallada ay socdeenna way ka faa'iideysteen baa la leeyahay Imaaraadka Carabta oo waxay xiriir la sameeyeen Iran inkastoo wali Imaaraadka duqeynta iyo gantaalada Iran ay si daran ugu dhacayaan laakiin sidoo hore way dhaantaa baa la leeyahay hadda yaa xoogaa roon bay maraysaa yaa wax ku dhaceen ma yaa badbaade ma yaa roon oo gantaaladu ay ku yar yihiin waayahay war degdega oo inta aanu barnaamijka hadda ku guda jirno soo dhacay ayaanu eegaynaa isna oo Al Jazeera hadda tabinayso in yar ka hor waxa lagu waramayaa ama la sheegaya in Iran ay burburisay xaruntii korontada ugu weyneed dalka Kuwait iyo warshadii sifaynta biyaha dalka Kuwait waa war hadda soo dhacay intaanu barnaamij ku guda jirnay macnaha waxa moodaaba Mareykanka iyo Kuwait Iran agteeda hadda inuu hal wardan noqday waxa la burburiyay xaruntii korontada ugu weyneed dalka Kuwait macnaheedu waxa hadda in ku dhow ka badan haaf Kuwait mugdi bay galaysaa caawa koronto laan bay saxanaysaa warshadii sifaynta biyaha Kuwaitna waa la burburiyay macnaheedu waxa ay tahay biyo nadiif inay Kuwait hesho ama biyo ku filan ay gaarto sida Iran ay ugu dhibtoonaysa ayay Kuwaitna ugu dhibtoonaysaa sidoo kale saldhigga Mareykanka ee ciidamada Mareykanka arrintan Kuwait jooga ayagana way saameynaysaa baa la leeyahay safaaradaha Mareykanka safaaradda Mareykanka diblomaasiyiinta Mareykanka ee joog Kuwait arrinta iyaduna way saameynaysaa macnaha Kuwait Iran waxay leedahay wax la isu reebanayo malaha ilaan Iran iyada laga burburiyay oo laga maartay weeraray xaruntii sifaynta biyaha dhuumihii biyaha dalka Iran isu gudbinayo dhan la burburiyay xalay duqeyntii ugu dambeysay Iran in yar ka hor intaanu barnaamijka hadda ku guda jirnay waxay sheegtay inay iyaduna aarsan doonto oo siyaasad furan oo la isbaabi'inayo waxba la isku reebanayn la isula dhaqmi doono
tii ayayna hadda u muuqataa inay Iran dhaqan gelisay waayahay saaxiibada qiimiga loo wixii ku soo kordhay xiisada bariga dhexe oo maalinta ka dambeysay xumaanayso barnaamijyada dambe ayaad ku maqli doontaa qodobka ugu dambeeyana waxaanu ku eegi doonaa sheekada adduunka ugu yaabka badan maanta ninkii Trump xalay xaflad soo dhaweyn Infantino gudoomiyaha FIFA loo sameeyay ayuu wuxuu uga sheekeeyay koobka adduunka ka dhacaya waqooyiga America Canada Mexico iyo Mareykanka Trump waa dadka loo yaqaan all no adduunka waxa jira dad wax kasta waa naqaanaado waa daadiyay dhahan Soomaalida weligiis banooni ma ciyaarin kubadda cagta ma ciyaarin xitaa ma daawadaan lahayn inta badan tenniski waxaas iyo ciyaara laakiin kubadda cagta weligiis xitaa dadka aad ku daawado ma wuxuu ku leeyahay ciyaartii u dambeysay ee dhacday una dhaxaysay Argentina iyo Ingiriiska waa daawanay kulaha wuxuu iskaa I was watching last night Argentina were playing England played very well England si fiican ay ciyaartay kulaha laakiin waxa la yaabo kule Messi xagga amal iska taagnaa kulaha dhanka midig iska taagnaa he was right there on the right iska taagnaa and then maxaa dhacay markii wuxuu kule idin la wadaagi doonaa wuxuu kule kubadii qaatay muxuu sameeyay markii he run around many players tried to stop ciyaartoy badan ay isku dayday kulaha inay joojiyaan baday karon laakiin ma joojin karin kulaha wax hore iska sheega wuu carara kulaha Messi shab uu dhaliyay England oo eedeena wuxuu maqlay managerka England qalad sameeyay maamulaha England ila cadow ka dhigayso waqti qalad sameeyay maqlay haye markuu xoro isku la daaraa dad baar kale aad markay sheekeynaa qof walba kula daarto waa jirtaa qof waxa ka sheekeynaysa waxa leedahay hadda koran oo safar mara oo maartay Ingiriiska joogo oo maartay markabkii markaa fuuribnay gaari aan wadanay aalada waqti madaxweynaha anaga laftiga gaari anaga wadana iskala daarna waxa la anaga waxa degnay xaafada aniga xitaa walaalkii degan waxa jir markaa sheekaysanaysa aad ka sheekeyn karin xitaa ma oga beentiisa waxa leedahay xaafada waxaan degnay Madiina la dhigay Madiina anaga laftiga degan warniyo markii ma loo fakiraa waxa leeyahay ka sheeka aan jirin ba alifanahay niyo anaga gurigeena waxa keensanaa armaajo markaa gacan saadada idan shaqeys wuxuu kale anaga laftiga taan adee iskana ma jirto Trump wuxuu ku leeyahay managerka England qalad sameeyay he made Harry Kane defense Harry Kane wuxuu ka dhigay kulaha defense ka dhigay I know Harry Kane very well We gather tonight in New York City as we await the final face-off on Sunday between two amazing teams, Spain and Argentina. I watched that pass that Messi made. And not knowing as much as the people in this room, but I know about sports and I know about a little bit about soccer. But I watched Messi and he was well guarded, right? Well guarded. And all of a sudden he's standing on the right. You understand what I'm talking about? I don't know if anybody I just noticed it. Nobody talked about it. I just noticed it. I said, he's so well guarded by a great player. And then he moved to the right and the other player was just standing there. And he had plenty of time. He kicked it. It was within, I would say, a quarter of an inch of being perfect. And that was the end of the game. It was brilliant. And these great players, they seem to do that over and over again. They're just born with something extra special. I know that Ronaldo is one of them. I got to know him over the years, and he's a great guy. You have a great player in England who I played golf with. You. Okay, أنت أصلك سوق هذا النوع كله. أود Messi. Messi عنده كلها. بس well guarded. سفي عنا لو إلى الله كلها. No structure. خف له الله ولا كلها. خف له الله. ورسال الله الله. وديه حارت بانو شيء ترى. مو حرم كل شيء. وحكى قدر نكان أو إنفانتينو أو فيفاست. ترى فاهم نك ترى مو فاهمين. وحو كله هاي. وحد على كلها the best event على الدنيا وفعلا أو بني آدم صامره ما بني آدم ماشي فوضى الدنيا وقسمي ترى الدنيا وكله حريف وانك إنفانتينو because ترى مدانا أمانة وكعينا ترى ما فرحة مركوني جرامة والله أمانة وحلا Mr. President you're very good مثلا الله ويا هاي صاحب هذا قيمة لو برامج كيوات كلا ساعتين كوسو مال ميديا قيبتهم للنجينتا تاني إنه كل ما